Janalka nuxurka dhacdooyinka kala soco wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka isla markaa ay dhacayaan falanqaynta dhacdooyinka Soomaalida iyo caalamka si aad u hesho xogaasi oo dhameystiran fadlan janalka subscribe saar Facebook-gana follow gare si aad u hesho xogaasi oo dhameystiran waxaan wanaagsan daawadayaal idilhantiin baa ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono doorashada ka socota dalka gaar ahaan golaha shacabka oo maanta ugu dambeysay magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacday dhowr kursi oo markaasi dabcan ay ku soo baxeen dhowr xildhibaan oo ay kamid yihiin dabcan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Kulanajiis oo dabcan kala sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo in badan lagu yaqaano inuu si aad uga soo horjeedo madaxweynaha uu madaxweynaadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Kulanajiis oo isagana markaasi ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda ama hay'adda nabad sugidda NISA oo dabcan lagu eedeeyay waxyaabo badan oo markaasi dabcan hay'addaasi ay geysatay iyo waxyaabo kale oo dabcan marka lagu eedeynayo isagu si guud arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa iyo sidoo kale Ibrahim Sheekh Mudey oo isagana dabcan shalay laga celiyay garoonka aadan cadde oo ahaa gudoomiyihii koowaad golaha shacabka ama baarlamaankii tobanaad jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo Cali Yare Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir oo isagana dabcan la sheegay in maanta dabcan laga celiyay garoonka aadan cadde sida baraha bulshada dabcan ay haysato oo dabcan uu isagana ka hadlin arrintaasi arrimahaasi ayaan isdul istaagi doonaa Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto ayaa dabcan barnaamijka qayb ilaa intaanan Axmed soo dhaweynin waxaan ka codsanayaa daawadayaal in aad muuqaalkan share gareysaan oo like saartaan committee-ga iyo fikirka dabcan mawduuca ama barnaamijka uu quseeyna aad soo dhiibataan sidoo kalena haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saarto Axmed soo dhaw waa mahadsan tahay Cabdirasaaq Wadani daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka share gareeyaan like iyo comment-ga inay intaba maaragtay nagu sharfaan iyaga sharaf leh inta kadib Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan ku bilowno Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta wuxuu noqday xildhibaan kamid ah xildhibaanada baarlamaanka 11aad maaragtay federaalka in badan buu odaygaas mucaarad ahaa laakiin hadda kolley waxa weeye golaha shacabku ku biiri doonaa in isbedeli doono war ma hayo runtii aad baa isha loogu hayay kursiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Soomaalida iyo dadku way wada eegayeen wax badan baa laga faaloonayay dadka qaar ninka wax u lahaayeen odaygu wuxuu taagan yahay madaxweyne uu taagan yahay kursiga baarlamaanka armu soo waaya laakiin adigu kolley maanta waa la shaaciyay inuu ku guuleystay waxaan u rajaynaynaa inuu dee mucaaradnimada iska daayay bal uu dee dadka Soomaaliyeed wax badan buu mucaarad u ahaay haddii cumaamadda maaragtay u celiyeen oo cumaamadda loo celiyay lagu sharfay oo lagu karaameeyay inuu baarlamaanka 11aad uu ka mid noqdo inuu ummadda Soomaaliyeed si fiican ugu adeego oo ugu shaqeeyo oo uusan dee soo noqonin siduu sanadihii dhaweyd ku jiray wax iska bedelo inkastoo oo aan dhihi karo Cabdiraxmaan yani horta shakhsiyan anigu aad uma aqaanin laakiin dadku ka yaqaan waxay dhahaan waa nin wanaagsan nin fiican way dhahaan laakiin adigu cid qofku neceb yahay waa madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday ninkaas aad inta badan uu u dhaliilahaa marka de kolley waa shakhsi iyagu madaxweynuhu waa shakhsi isaguna waa shakhsi kale laba shakhsina wax waa dhex mari karaan laakiin waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur xoogaa shakhsiyadda iyo kala saar iyo dawladnimada oo waxa weeyaan baarlamaanka si fiican inaad uga muuqatid bay kolley Soomaalidu ka sugaysaa insha Allah deeta madaxweynaha ana tartankeeda waa u joognaa hadii Ilaahay u gaarsiiyo maanta Dhuusamareeb doorasho ka dhacday isaga iyo Kulanajiis ku soo baxay si weyn baan loogu dabaaldegay marka ay soo baxeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur si weyn loogu dabaaldegay dadku runtii waaragtay aad waa la soo dhaweeyay baraha bulshada waa laga dareemayay kulankiisii maanta markuu soo baxay dad badan baa u hambalyeynayay oday wax badan buu dibad joog ahaa oo iska mucaarad ahaa kolley waxa weeyaan waa la soo dhaweynayay waxaan rajaynaynaa dee inuu maaragtay wax soo kordhiyo lama rabo buuq laakiin wax kale wax ka fiican buuq inuu soo kordhiyaa la rabaa
waa tahay markii si loo eego sidoo kale waxaa jirtay shalay ilaa maanta in iyagana garoonka aadan cadde lagu celiyey si gaar ah Sheekh Ibraahim Muudey gudoomiye ku-xigeenkii koowaad golaha shacabka ee baarlamaankii 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay in isaga iyo ciidan uu watay oo Braawe ku wajahnaa lagu hor istaagay inuusan dhoofi karin ama uusan u duuli karin magaaladaasi oo deegaan doorashadiisa ay tahay oo kursiga halka yaalla inuu soo qaato isagana baraha bulshada amaba media ama warbaahintu la hadlay isagoo sheegay si weyn u falanqeeyay ama u faahfaahiyay hor istaagii lagu sameeyay iyo waxyaabaha markaasi dabcan inkastoo uu si gaar ah una dad gaar ah uusan ugu eedeyn oo si guud u ka dhigay Aliyare Cali ayaa isagana maanta sida wararka qaar ay sheegayaan aad loo hadalay Abdiraxmaan Cabdishakuur Warsame haddii aan ku sii dhexgalo Abdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo in badan mucaarad ahaa oo kasoo horjeeday dowladda Farmaajo iyo sidoo kale raggan oo in badan taageersanaayo oo difaaci jiray in iyagana maanta lagu hor istaago Abdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu soo baxo maxay ka dhigan tahay runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan ku hormaro intaan taa u gelin arrin yar oo kale muuqata waxaad moodaa saraakiisha ciidamada qaybaha kala duwan ee ciidamada inay runtii aad ugu biirayaan baarlamaanka 11aad siba dhinaca Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa jira Saadiq John oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka horeeyay oo soo doortay baarlamaanka ka mid noqday waxaa jira Yaasiin Frey oo isagana saraakiisha niisa ku jira Kulanajis oo maanta isagana soo baxay waxaasoo dhan waxay cadeynaysaa horta in oo maartay saraakiil dhalinyaro ah oo badan ay baarlamaanka ku biirayaan laakiin dad badan waxay isweydiinayaan why maxaa keenaya in maaragtay ay ciidamadii saraakiisha ciidamada inay baarlamaan noqdaan maxaa maaragtay kalifaya ama maxaa keenaya waa su'aalo u baahan runtii in laga jawaabo laakiin waxyaabo kolley waa filayo duruufo baa kalifaya arrinta marka ninka la yiraahdo Muudey waxaa jirtay hadal hayn badan oo baraha bulshada dhex socota laakiin de sidii wax uga jiraan iyo sida ay run tahay ma sheegi karno ma garan karno laakiin dadku wax badan oo mala awaal ah iyo wax bay sameeyaan waxa la filayaa baa la leeyahay in uu xildhibaan noqdo kulli mudana waa la hadalay arrintaas ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin iyo Muudeyna waxa filayaa inay isku ay inkastoo baar ninka la yiraahdo Fahad kursiga u tartamayo baladweyn yaallo deegaan doorashadoodu kala duwan tahay laakiin haddana waxaa leeyahay Fahad baa soo socda xildhibaan doonaya haddana wuxuu sii rabaa kursigii uu Muudey ku fadhiyay marka arrimahaas kulley inkastoo dadku ay hadal hayaan oo war suuqeed u yahay oo war xaqiiqo ah oo annaga hadda aan leenahay waa run uusan ahayn laakiin waxaa dhici karto in loo celiyay sababaha la mid ah sababahaas in Muudey la rabo hadduu de Muudey xildhibaan soo noqdo kursiga u tartamaya marka in la rabo marka in halkaas marka laga reebo oo lala rabo de sida dadku ay sheegayaanba in xoogaa markaan inta yar isku qaabayno xogta aan hayno marka isu yar aadino waxay sawiraysaa in meeshaas nin kale loo rabo oo Muudey la leeyahay iska sii bax sii soco hore sii soco waa gartay markii si guud loo fiiriyo sida hadda waad ka dhawaajisay waxaa jira saraakiil ama dabcan ciidanka inuu ku biirayo baarlamaanka 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dadka qaar siyaasadda inta badan dhageeya ama xuraama ama falanqeeya waxay inta badan u tiirinayaan in saraakiishaasi ay dambiyo kala duwan galeen ama gaboodfalyo loo aaneynayo ama eedo marka iyaga loo tiirinayo inay wax markaa ku lug lahaayeen arrintaas la isdhihi karaa in ay dabcan baarlamaanka uga gabanayaan oo si aysan hodhow maxkamado amaba kiisas dacwad ah loogu soo oogin in ay baarlamaanka uga mid noqdaan niyo horta waa su'aal meesha ku jirta ninka markaan dhahno waddankeena iyo dhibaatooyinka ka dhacay markaan fiirino
waxaa jooga dadka dambiya waaweyn waayahay dadka raggan hadda imanka kulanjiis iyo Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Fari iyo waxaa lagu eedeeyaa Ikraan aad iyo baa arrinteeda lagu eedeeyaa Ikraan Tahliil Ikraan Tahliil ninka la yidhaha Saadiq John isagana waxaa lagu eedeeyaa weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu de ka dambeeyey oo saraakiil dhalinyaro ah oo rag dhalinyaro ah uu laayay baa isna lagu eedeeyaa laakiin Soomaalidu hadday isla xisaabtamayso oo maxkamad is saarayso rag ka dambiyo badan baa horta waddanka jooga oo dee aan horey maxkamad loo saaray marka anigu ma qabo cabsidaasi inay jirto raggaasina ay sidaa darteed ay sabab maaragtay uga dhiganayaan laakiin anigu waxaan qabaa in meesha laba xulufo ay jirto xulufo nabad iyo nolol ah oo maaragtay garab nabad iyo nolol ah ama waxaa doonta lagu yeero maaragtay dee ciidan ku jirto maaragtay siyaasadda ku jirto meelo kale ku jiro oo nabad iyo nolol ah oo maaragtay baarlamaanka dee lagaga rabo inuu maaragtay ololo iyo campaign iyo saameyn ay ku yeelato iyo garab ragga nabad iyo nolol kasoo horjeeda ah ama dowlad goboleedyada ha ka imaadaan sida Jubbaland iyo Puntland ama midowga musharaxiinta dhankooda ha ka imaadaan dhankaasina waa garab marka baarlamaanka hadda wuxuu noqon doonaa baarlamaankii ugu dhibaatada badnayd baarlamaan Fahad Yaasiin gudoomiye ku-xigeen ka noqday Saadiq Joonna uu joogo yah rag kale oo kasii maaragtay likadsan ay maaragtay fadhiyaan gudoomiyaha ninka ka noqon doona wala warba haysta waa gartay dadka marka waxay isweydiinayaan macnaha xilli waxaa jirtay ka fududeed in ay dad qof walba yani u fududeed inuu kusoo biiro baarlamaanka oo dabcan odayaasha iyo arrimo noocaas oo kale la xeerin jiray waqti xaadirkan maxaa keenay ciidanka ay ugu ordayaan inay ka mid noqdaan baarlamaanka waxay de kolley warkayaan nin walba fursad markuu helo waay maantana hogaamiyaasha Soomaalidu waxay noqdeen indha ku garaadle ma garatay indha ku garaadle maanta ninba ninka ugu dhow uu aaminsan yahay baarlamaanka Kenya ma jirto wax kale oo maarta ay fiirinayaan malaha farmaajo iyo tiimkiisa waxay keenayaan inta ugu dhow ama ciidan ha noqdo ama askari ha noqdo ama qabqabla hor ha noqdo Axmed iyo Danayna waxay keenayaan inta iyaga ugu dhow ma garatay midowga musharaxiintuna kulli rafashay ku jiraan oo iyaguna waxay raadinayaan dee rag iyaga taageersan marka bahashu waxay u kala xiran tahay labada dhinac bay ka raran tahay waa arki doonaa dee kulli labadaas qoladii maaragtay ku adkaata baarlamaanka xilligeeda eegayna waa gartay weli waxaad daawanaysaan daawadayaal barnaamijka nuxurka dhacdooyinka oo idinkaga imaanaya janalka nuxurka dhacdooyinka oo aan ku eegayno xaaladda guud ee dalka gaar ahaan doorashada ee dalka ka socota golaha shacabka ama aqalka hoose oo dabcan ay ka socoto deegaanada dabcan dowlad goboleedyada iyo guud ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho ee gobolka Banaadir oo iyagana lagu dooranayo kuwa reer waqooyiga iyo Banaadiriga intaba Axmed Cabdi Maxamed ayaa barnaamijka ila falanqeynaya Axmed sidoo kale waxaa jirtay arrimo badan oo la xiriira dhanka musuqmaasuqa iyo guddiga doorashooyinka iyo arrimo badan oo cabasho oo kuraasta qaar ka taagan oo dadka qaar ay sheegayaan in kuraasta shakhsiga markaa doonaya inuu u tartamo kursiga loo xirayo ama la leeyahay qof gaar ah ayaa kusoo bixi doona oo inta badan loo xaglinayo arrimahaas in badan buu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ka soo horjeeday oo guddiyo badan uu kala diray oo uu ka mid ahaa guddigii doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwii xalinta khilaafaadka niyahow horta waxaa weeyaan doorashadan hadda anigu ma dhihi karo waa doorasho laakiin waxaan doorasho maaha doorasho magaceeda ma wadato waxaan waa iska xulasho waa gartay sababtu maxay tahay sababtoo ah dee nin walba ninka ku fikira hadduu soo saarayo oo tartan madax banaani uusan jirin dee ma dhihi karno doorasho waa xulasho soo doorasho dad badan maaha marka baasha waxaa la rabay in la yahay madaxweynayaasha ha soo xulaan baarlamaanka ma garatay taas marka ra'iisul wasaarahana doorkiisu waa iska yaryahay
sababtoo ah waxaa jira guddiyo sidaad og tahayba guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dowlad goboleed kasta ka dhisan waxaa maanta uu samaynayo lafta gareen wuxuu samaynayo waxaa weeyaan ma celin karo ra-iisul wasaare Roble hadduuna lafta gareen celin karina dee Axmed iyo Deni ma celin karo ma garat iyo qorqor marka bahashu marka niyow waxaa weeyaan dhinacaas saasay uga raran tahay laakiin wax kastaba ha ahaatee haddiiba lagu ummadda Soomaaliyeed doorashadan ay ka gudubto oo lagu nabad helo ya mustaqbalka waxay ila tahay ummadda Soomaaliyeed iyo doorashooyinka dambe iyaga ka ayahooda ka tashan doona iyo sida wax u noqon doonaan waayahay 25 Febraayo waa xilli loo asteeyay inay soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka ilaa haatan way jiitamaysaa oo kuraas badan baa dhiman oo dowlad goboleedyada qaar ay ku dhiman tahay 25 Febraayo haddii ay gaarto doorashada oo weli ay sii socoto maxaa la filan karaa runtii doorashadu way daba dheeraanaysaa 25 Febraayo sidaan anaga hadda muuqata kuma soo gabagabayso hadda Hirshabelle way bilowday deegaan doorashadeedii labaad Jowharna waa adigu waxbaa ka soo baxay galmudug waxaan maanay gabagabo waaye Dhuusamareeb meesha la yiraahdo gobolada waqooyina iyagana waa gabagabo Dhuusamareeb iyo iyadana waa gabagabo koonfur galbeedna waa iyadana gabagabay way hadda maraysaa oo xildhibaana badnayd laakiin meelaha hadda dhiman waa ugu dambeyn doona Boosaaso iyo Garbaharey arrinteeda muran badan baa ka taagan oo arki doona sida ay xal noqdo Puntland xalay Jubbaland aad baad moodaa inay maaragtay arrinteeda ay uga walacsan tahay arrinta Garbaharey maalmaha soo socda si waqti kala cadeyn doona kulay siday noqoto marka 25 Febraayo doorashadu way dhaafi doontaa sida hadda la qiyaasayo aad iyo aad oo leesleeyahay dabcan kuraasi badan dhiman waqtigaas ma ku suurtagelayso وهاجاك داود يال أنت ينقصوا في مرينا برامج كجارك أو تكلسوا تين جنال كا نحر كدعدوين كون كوي نيد ورشدا دلك كسر تجاران قرها الشعب كا وطبعا يقصوا بحين سياسيين إن بدل غير قناة الصومالية وطبعا وكم دي هي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وطبعا قاطي كرسي جهوب بقول صدق يسدد ودورشدي زي كده عدم جالده لوسمرب يسده كلنا جيس oo isagana dabcan qaatay kursiga hoob 40 oo ay ka dhacday doorashadiisa isagana magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale Ibrahim Sheekh Muddo isagana laga hor istaagay garoonka Aadan Cadde Cali Yare Cali oo sidoo kale isagana la sheegay in laga hor istaagay garoonka Aadan Cadde inuu ka duulo arrimahaasi ayaa in badan ku gurfeynay iyo caqabadaha laga filan karo doorashada iyo sidoo kale waxyaabaha inta badan loogu hadalhaynta badan yahay oo ah in ay saraakiisha ama ciidamadii qalabka sida Soomaaliya qaybo kamid ah ay ku biirayaan baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya arrimahaasi ayaa in badan ku gorfeynay Axmed Cabdi Maxamed iyo barnaamijka qaybiga laha anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad Cabdirasaaq Wadanina dabcan waan idin qadaadhigayay haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa inaad marka hore share garayso like aad saarto si saaxiibo badan u gaaro oo iyagana dabcan ay u daawadaan fikirkooda ku aadan mawduucan aan barnaamijkeena kaga hadlaynayna ay fikirkooda uga soo dhiibtaan haddii aad channelka ku cusubtaana dabcan aad subscribe saarto si markaa aad qayb uga noqoto channelka uuna kuu soo gaaro xogaha iyo wacaalaha iyo falanqaynta mar walba aan soo gelino channelka intaan ku kulmayno barnaamijkiisa xigaan oo geli channelka nuxurka dhacdooyinka kala soco wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka isla markaa ay dhacayaan falanqaynta dhacdooyinka Soomaalida iyo caalamka si aad u hesho xogahaasi oo dhameystiran fadlan channelka subscribe saar Facebook-gana follow gare si aad u hesho xogahaasi oo dhameystiran